بسم الله الرحمن الرحيم halkaan saaka bulshada isugu timid gobolka Mudug oo qaybtii gaadiidleyda gobolka Mudug waxay ka cabanaysaa taarigo dawladdu ay soo saartay oo lacagteedu qaali aad u tahay bulshaduna aysan awoodin anigu qaas ahaan gudoomiyaha iskaashatada ahay waxaan ku daahfurhayaa hadalka wala iga dambeynhayaa bulshadu saaka dareenkeeda inay halkaan ku cabirtay isugu timid dawlad kama soo horjeedno dawladda ma diidanin laakiin waxyaalaha macnaha shacabku uusan qaadi karin oo ay ka cabanayaan dareenkooda halkaan ku cabirayaan intaasaan saaka isugu nimid wax kale oo halkaan macnaha wax weey ama dawladda lagu mucaaradahayo ama aan kaga soo horjeedno ma jirto dawladda waa u baahannahay kama maarno annaga dhisanay waa dawladdayadii ragga saakay aan saaka u yeerno meesha taagan ma ahan rag ama ayagu dan gaar ku wata ama annagu aan si kale aan u soo kicinay dareenka inaan ku cabirno bulshadaana cabasho ah baa u tagtay annaga codsanay in mas'uuliyiintii hore oo galmudug ekis aan u yeerno nagala qayb galaan wixii aan ku qaldanahana ay saxaan sidaas ku soo dhawaada u timid السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhib badan ma jiro waxaan ka hadlaynaa taariikhdaas adduunka waxa loo baahan yahay lagu xisaabtamaa taariikh hadii la keeno mid lagu nacfiya annaga mid noo timaada mid lagu nacfiya ma aha madaxweynihii la soo doortaaba mid buu wataa mid ku aadana looma yaqaan ayadoo saas awal aan la yaabsanayn baa hadda misana waxa laga hadlayaa qiimo aan wadanka joogin ama se muslimku uu ku jirin oo siyaada waxa saarabnaa marka in dawladda uga codsanno in waxaas wax laga bedelo hadii dadku shacabka lagu tunto uqubana waa imaanaysa in la isnacana waa ka soo baxaysa meesha qaf xoog ku haysta lama arko qaf qariib kara lama arko qaf qasab ku wadi kara ma jiro waxa la isku yimid meesha waa tash in aad ruuximinta noo qabo adaa ku qumana noo hay way wax lagu wada nooliya ana anta ameera ana asaa dadka xukuumahaya cidna wax lagu wadi karo waxaan codsanaynaa taariikhdaas meel kale wax nagama soo galaan baabuurtii waa loo shaqo waaday meeshay taagan yihiin dekad uma hayno shaqo kale uma hayno iyadoo geershi ku jirto oo ku daxalisatay oo geershay lacagtooda nagu socdaan baa misana waxa la fagahayaa taariikh aan la aqoon geershkii in lagu xukumo misana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha maanta muujiye dareenkooda ayoo ka cabanaya taariikhda boorsooyinka lagu keeno tii saddexaad oo boorso lagu sida mana waxaan ugu dulqaadan weynaa in taariikh boorso lagu sido oo dagaankii Dhuusamareeb magaalada madaxdii aan ka jirin in lagu soo bilaabo gaalkacyo ayaan ka cabanaynaa gaariyaal geerish ku qurmay in la yiraahdo soo bixiya taariikhda la idinku xiraayo ayadoo shaqeyn baan ka cabanaynaa waxaan u sheegaynaa dawladdeenu weeye mucaaradna ma ahin intaana iskuma soo bixin inaan dawladda ridno waan la ogyahay gaalkacyo waa laga taageeraa dawladda waxaana keenaya rabatinka shacabka dawladda ay rabaan waxaana rabinahana la ka daayo taariikho boorso lagu keenay $300 laga hadlayo dadkan ma awoodaan tii hore madaxweynayaashii hore ay keeneen ayaa shaqeyn la oo meel aan u doonay meel aan u raacna laana midda aadam lagu xiranay oo hore oo nala siiyay kama shaqeyso dawladdeena kale Puntland kama shaqeyso halkaan kala ku canshuuraa in markaan mid kale oo hor alle oo aan dawladda dariska aysan la qaadan aan qaadanana sax maahan hana la ka daayo cabashada maanta meesha qoraxda u taaganaa waxay tahay inaan nolo ku takrifulin oo naloo adeegsan shaati dawlo waxaan rabnaa ma diidanin dawladdeena taariikhda la wadaa in laga tashado oo baarlamaanka waxay noo sheegeen xataa inaysan soo marin ay tahay bahal mara dib ha loo celsho waa ogolnahay go'aanka soo baxaan qaadanayna laakiinse midaas maanta taagan ma qaadanayno mana qaadan doono الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا كسو qaybgalayaasha dhamaantood cabashadooda muujiyay oo isku yimid barxadan waxaan ka cabanaynaa dawladda inaan ka soo horjeedno maahan sida rag iga horeeyay sheegeen waxaan ka cabanaynaa awalba dadku shaqalaan ku dhacday oo la iska dhoobay meesha sana dawladda intay timaado inay taariikho dhacaysa oo madaxweynihii walba la dhacaysa tii saddexaad way midaan isaan u maleynayo oo hadda nala leeyahay qaata
labadii hore baabuurta iska dul saaro noogu xiran marka intaasaan ka cabanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay bismillahi rahmaani rahiim niman odayaasha horta cabashadiinni waa dhegaysanay waanan aragnay waxa meeshan yaalla ilaa 3 taariga hadda ayaanu arkaynaayo ku dhagan oo galmudug ah arrintaasna waxa weeye dee wasaaradii iyo xildhibaanadii deegaanka iyo dabcan galmudug oo dhan wax saameyn ku yeelanaya weeye waana laga wada hadlayaa haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa meel raali lagu wada yahay in la isugu yimaado haddii alla idmo sida dadkan ay sheegeen runtii waxaa farxad ah inaynaan dawladiyad ahaynina anaga laftigayagu wayna dhibaysaa inaan astaantii galmudug taariikhdooda aysan baabuurta ku xirnayn kuwa qaar ka mid ah waxaan rabnaa astaanta in la helo waxaan rabnaa in maaragtay taariikhda la wada qaato horta taariikhda la wada qaadano maskuur waafaqsanahay diyaar ma una taariikhda inaan qaadano waayahay marka maadaama haddaan saas diyaar ugu nahay taariikhda inaan qaadano wixii farsamaha waa lala gelayaa dawladda galmudug insha allahuna meel raalli lagu wada yahay ayaa la isugu keeni doonaa annagu cabashadiinni maadaama aan nahay odayaashii deegaankan iyo dadkii deegaankan runtii laxajceladu ka haysay cabashadiinni waa u dhagan nuglaanay waana ku soo baxnay arrintaasna waxaan keeni doonaa meel fiican haddii ilaha idmo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ilaahay baa mahadda iskale waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaashii magaalada gaalkacyo isku soo baxaan nabadeed oo muxuu ahaa ay ku cabirayaan gaadiidleyda magaalada gaalkacyo cabashadooda ay ku cabirayaan si nabdoon waxay ku beddesheen intay fawdo samayn lahaayeen oo muxuu ahaa maamulka galmudug ay ka hor imaan lahaayeen maanta inay halkaan qaybo ka mida intay soo dirsadeen oo intii kalena guryihii ay muxuu ahaa ay joogaan intii ay soo dirsadeen ay yihiin una soo dirsadeen inay soo bandhigaan cabashadooda ku saabsan taargada baabuurta shalay waxaa kaloo jiray gaadiidley kale oo barta kontaroolka cabasho soo bandhigahayay oo ka cabanahayay iyaguna sidoo kale dhaqaalaha cashuurta oo laga qaadayo halkaanna waxay ka cabanayaan lacagta taargada iyo lacagaha cashuurta oo laga qaadanayo oo ay yidhaahdeen lacagtan waa nagu badan tahay waxaa kale ka cabanayaan taargada muxuu ahaa 3 taargo oo baabuurtu ay haystaan oo meesha muxuu ahaa oo ku dhagan gaariga oo dawladdii galmudug ee hore tii kale ku xigtay ilaa iyo hadda maamulkan hadda cusub oo xilka la wareegay dhammaan taargooyin intaasoo taargo oo lacagta laga qaaday bay ka cabanayaan meeshii taargada loo bedeli lahaa oo taargo cusub la siin lahaa in la yidhaha taargadii hore iska tuura taargo kala qaata way ka cabanayaan dhammaan waxaan salaamayaa madaxda galmudug iyo isku soo baxayaasha gaadiidka iyo kaambahda warfaafinta dhammaantiin waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa meeshaan ka caddaynaya aniga hadda reer gaalkacyaan ahay guddoomiye gaadiid maahi darawal baan ahay tii saddexaad wey middaan socotaa labana way igu xiran tahay midna hadday soo socotaa marka waxaan u sheegayaa qolada taargada wadata madaxweynihii yimaada iyo xildhibaankii yimaada iyo kii taargada qaabilsanoo yimaada hadduu mid keensanayo dambe anu ma qaadan doono mana yeelayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaan nahnay guddiga gaadiidleyda dhallinyarada ka shaqaysato magaalada gaalkacyo waxaan cabasho ka nahnay wasaaradda gaadiidka oo noo keentay taargo ii sheeg oo nooc kale ah hore waxaa u shaqayn jirtay 3 taargo haddana mid afraad lagu soo daray taasaana ka cabanaynaa waxaanan doonaynaa haddaan nahnay dhallinyarada ku dhaqan ee magaalada gaalkacyo waxaan rabnaa inuu madaxweynaha iyo maamulkaba waxay isla ogyihiin inay noo keenaan oo shuruuc leh oo dalka iyo dadkaba anfacayo oo ay raali ka yihiin dhallinyarada iyo inta baabuurka wadato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جودة قاعد قبل كمدوق وحن كعملنا تارجدا فرح بدن أمام القبل مدوق ومالين كسر نقص ورجع هيو أيضا أول وقت كيسن ويا العقد كنترول هذا ومالين كسر بشيبة دور جرى صوت العايو بعد المحل كان أيضا لما تارجو هو قبل مدوق شغال جرتي بمت سد حاجة وكلا لقوا صوت دري وحلا شيء الله بقولي أفرسن دور الله يسكتها ما أودي كرنا ما حمل كرنا
lacagtaasna meel aan ka bixinno garan mayno marka dowladda galmudug waxaan ka codsanaynaa cadaadiska inay naga yarayso shacabkeedii baan nahay waa u heelanahay cadaadiska faraha badan hana la ka yareeyo shidaaladii baan ugu qaaliyoobay kontaroolkiiba awal qaali ahaa wax kasta oo la qaadahaya baa waxay noqdeen baqas marka dowladda waxaan ka codsanaynaa cadaadiska faraha badan oo inagu wado inay naga dayso shacabkeedii baan nahay hanoo dhimriso dowladdu hanoo dhimriso intaasaan codsanaya anigu waxaan ka mid ahay gaadileeda sida kuwa bajaajka ku shaqaysan ka mid ahay waa ii jeedaa in afaa baan ahay biilka baan ka raadsadaa habeenkii wixii ilaahay iga siiyo baan ka soo helaa in la yiraahdo 270 taariga baa qaadanaysaa waxay nagu noqotay waxaan aan algal ahayn macquul ahayn dadkan iyo deegaankan masiirkooda iyo mid ka turjumayaan ay saarintaas ka dambeyn oo dadana gooniyo wata ee dad kale la soo adeegsaday oo raba dadka in maamulkooda la isku diro oo raba in dadka la soo horkeeno inay wataan baan ogaanay taasoo inta cabashada ka nahay anagu hawshan waa ku soo baxnay markii aan ka war helay in maxay ahayd isku soo baxaan gaadiidleyda jiro sidaad arkaysaan gaadiidka oo cayn walbaba leena buuyi marka inaan bal aaraada isdhaafsanno ayaan ugu soo baxnay waxaanan ku qancinnay inay sugaan oo loo yimaado wasaaradda gaadiidkaan u malaynayaa inay leedahay shaqadan taargada markaasna la wada hadlo aad iyo aad baan maxay ahayd ay u muhiim tahay inay taargada la qaato oo astaanta maxay ahayd dawlad goboleedka inay ka muuqato sababtu waxa weeye baabuurta taargadu amnigii bay wax ka taraysaa astaantii maxay ahayd dawlad goboleedka ay wax ka taraysaa dadkuna waxa la rabaa wax laga qaadaya waa ayaga waxaysan qaadi karin in sidii saaxiibadayba ay u yiraaheen ayaan taan la qabaa marka waxaan ka codsanaynaa raggan isku soo baxaan baabuureyda inay maxay ahayd la sugaan waqtiga kulley dawladdu way u imaanaysaa inaad markaasna wixii hawlaah oo aad horay u wadeen hawlihiinni inaad aadaan ka shaqaysaan wixii shaqo haya waan ognahay inuu waqtigu aad iyo aad daruufo badan inay jiraan oo maantayto maxay ahayd dakhligii aad iyo aad u yar yahay dadkaanu waxay kulley wax ka helaan waxay ahaayeen oo ugu badan xoolaha wey xoolana maanta lama gato marka nolosha laftigeediiba ciriiri ku jirta marka in laga fakaro oo dawlad goboleedka dadka u xisaabsan wasaaradaha maaliyadda iyo wasaaraddan hadda meeshaan gaadiidka oo maxay ahayd taargooyinka ku shaqada leh inay hawlaha si wanaagsan oo dadka maxay ahayd aan dhib badan u keenay horta bulshada meesha isugu timid aad baa yaan ugu mahad celinayaa inta ka bacdi kulli waa dareenkii hadii la cabiray waxaan ka hadlaynaa taas markaan faahfaahiyo barnaamijkan isugu nimid galmudug ma ahan inaan ka nahay xibin gaar gobolka mudug baan nahay dadkii galmudug aasaasay baan nahay ma ahan sidii horeyba loo sheegay inaan hadii la ku roonyaa ka soo horjeedno taa waa laga hadlay ka gadoomiye ahaan dadku waxba isku darsadaan loolaydu markay ceelka u aroorayso nin xarigu keenaa nin wadaantu keenaa nin xoogu keenaa dadku saasay wax isugu darsadeen waa ognahay waxaan leeyahay marka barnaamijka ninka wasiirka la magacaabay oo gaadiidka qaybta hay'addaasana naqusaysa wasaaradda gaadiidka waxa la in magacaabo waa bulshada ma ahan dad kale in la inuu soo tumahayo waxaad mas'uuliyiinta u tihiin waa intaan waa gaadiidka inaad ogaataan cabashadooda dhagaysataan noo dhagan lugnaataan baan ka rabnaa cid kastoo loo magacaabo taliyaha taraafikada waxaan cod dheer ugu sheegaynaa waxa garaaduhu kugu saaran yihiin waa bulshada waa gaadiidka waxa aad dhaqaalaha ka qaadaysaa waa gaadiidka
marka waxaan rabnaa inaan la isku dayin wax isboorsiisa ama haddii ilaahay kuu roon yahay anigaa iri ah madaxdu waxay ku fiican tahay inay bulshada la tashato waxa iyadu bulshada isku fahmaanna ay soo bandhigto oo si macnaha kalsoonida oo aan buuq lahayn caqabad baa ka imaanaysa gaadiidku wuxuu ka cabanaya wax kaba ka ama diyaar baan u nahay inaan taarigada qaadano gaari subadleeya inaan wadanno annaga aan diyaar u ahayn gudoomiyaha iskaashada annaga aan diyaar u ahayn gaadiidkoo dhanna waa ka sidhiya taas marka waxaan rabnaa hadday taraafik ka tahay hadday wasiir tahay hadday wasiir dawlad tahay hadday isku duwaha gobolka tahay in loo dhago nuglaado dareen dheerna loo yeesho bulshadu waxay ka cabanhayaanna aad loo tixgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi